بسم الله الرحمن الرحيم سدح دي عبد الله نين أضياء أيا وحاو دلي سدح ويل سدح دي ويل بنا وحاو بحيي هل مقاع عبد الله مدو كدي مركا هنا قاعدة إنه ويس لا كادن ورقص كدا هذا أيه نقدين وانا لكالسار وايسيدي وكلا داعي رايان maalmaha ka mid ah ayay odaygii geeridii qabatay isaga oo qal dhabaya oo indhihiisu ay cirka ku takhlan yihiin ayuu u baaqay saddexdiisii Cabdulaahi kadibna waxa uu dadkii ka ag dhawaayay xigaalkiisii kula sii dardaarmay saddex kelmadood oo ah Cabdulaahi wuu dhaxlayaa Cabdulaahina ima dhaxlayo Cabdulaahina wuu dhaxlayaa odaygiina sidaas uu ku geeriyooday dadkii ka ag dhawaa oo dhami way garan waayeen Cabdulaahiga aan dhaxlaynin iyo sababta aanu dhaxlaynin saddexdii wiil laftoodina way garan waayeen oo iyaga laftooda ayaaba isweydiiyey kadib waxaa loo sheegay saddexdii wiil nin garyaqaana oo ku nool deegaankooda ka durugsan waxayna isla aadeen ninkii garyaqaanka ahaa intii ay jidka ku sii jireen ayaa waxay saddexdii Cabdulaahi la kulmeen nin reer miyi ah oo awrkiisii oo ka halaabay raadcaynaya waxa uu ku yidhi ma aragteen wax awr meelahan daaqaya waxayna ugu jawaabeen maya kadib ninkii uu ka dhaqaaqay haddii uu dhowr tallaabo qaadayba waxaa ka daba yeedhay Cabdulaahi ka mid ah Cabdulaahiyadii waxa uu ku yidhi awrkaagu ma cawarna Cabdulaahigii labaad ayaa ku yidhi awrkaagu ma dib la'aa Cabdulaahigii saddexaadna waxa uu ku yidhi awrkaagu hays ma lahaa ninkii wuu farxay waxa uuna dhaaday inay awrkiisii arkeen kadib inta uu soo booday ayuu ku yidhi warin maadariyaal way isagii xaggaad ku aragteen kadib waxay ku yidhaahdeen wallaahi maanaan arag ninkii wuu xanaaqay oo wuu dhirfay waxa uuna go'aansaday inuu nimankan garyaqaanka u geeyo iyaguna way ku aqbaleen oo waxay yiraahdeen annagaaba ku sii aadanayn garyaqaanka sidii ayayna garyaqaankiisu la aadeen markii ay garyaqaankiisa soo hortaageen ayuu ninkii dacwadiisii gudbiyey waxa uu ku yidhi mudane garyaqaan nimankan waxaan u tuhunsanahay awr aan leeyahay oo iga halaabay awrkaasna astaamihiisii oo idibilan ayay sheegeen haddana way ka dhaarteen oo waxay yiraahdeen maanaan arag garyaqaankii waxa uu ku yidhi Cabdulaahigii koobaad ee yidhi awrkaagu ma cawarna xagaad ku aragtay awrka cawarnaantiisa waxa uu ugu jawaabay si murtiyeysan oo waxa uu ku yidhi awrka waxaan arkay raadkiisa kadib dhirta hal dacal ayuunbuu ka daaqayay ee dacalka kale kama uu daaqaynin waxaana ogaaday dacalka aanu dhirta ka daaqayn inaanu waxba ka arkin oo uu ilaa sidaas ayaana ku gartay inuu awrkaasi cawarnaa Cabdulaahigii labaad ayuu garyaqaankii warsaday sababta uu ku gartay inuu awrkaasi dib la'aa waxa uu ugu warceliyey sida caadiga ah geelu marka uu saaloonayo dibka ayuu ruuxaa kadibna saalada wuu firdhiyaa oo xabadiba meel ayay ku dhacdaa balse awrka raadkiisa waxaa ka muuqatay inay saaladu hal meel ku dhacaysay oo rasoobaysay taasina waxay cadaynaysaa dib uu ruuxo oo saalada kala firdhiya inaanu lahayn awrkaasi Cabdulaahigii saddexaad ayuu ku yidhi war adiguna maxaad ku garatay awrkaasi inuu hays lahaa oo dhan u janjeeray waxa uu ugu warceliyey si aad u fudud baan ku gartay oo awrku marka uu ciidda tamuuxda dul soconayo dacal dhulka ayuu ku yara aasmayay oo in yarba hoos u dhaadhacayay dacalka kalena dhulka dushiisa ayuu caadi ugu sawirmayay aniguna waxaan dhaaday awrkaas dacalka ay adimadiisu ciidda ku libdheen inuu ahaa dacalka uu u janjeero kadib garyaqaankii ninkii waxa uu ku yidhi war nimankani awrkaagii may arag nimankiina waxa uu la yaabay murtidooda kadib iyagii ayaa ku yidhi adiga laftaada ayaanu ku soconay garyaqaankii wuu soo dhaweeyey waxa uuna weydiiyey arrintooda iyaguna way u warrameen oo waxay ku yidhaahdeen aabbahaye saddexdeedanba waxa uu noo bixiyey Cabdulaahiyo markii uu qaldhabayeyna waxa uu noo sheegay mid naga mid ah inaanu dhaxlaynin kaasna annaga iyo sokeeyahayagii toona garan mayno sida awadeed ayaanu kuugu nimi inaadna kala xukunto garyaqaankani waxa uu arkay arrinkani inuu ka wan yahay arrin hal fadhi lagu dhammayn karo waxa uuna u sheegay saddexdii Cabdulaahi inay caawa isaga martuu yihiin kadib waxa uu geeyey gurigiisii markii ay guriga galeenba waxa ay dhaadeen in ay iliindhaynayso oo basaasuu dusha kala socdo kadib mid ka mid ah ayaa ku yidhi labadii kale war islaaliya isha ayaa laynagu hayaaye habeennimadkii waxa lagu marti sooray cunto ka kooban hilib iyo kimis markii ay u holladeen ee hilibkii tiigsadeenna Cabdulaahigii koobaad ayaa ku yidhi war iska ilaaliya hilibkani waa hilib ee maaha hilib adhiye Cabdulaahigii labaadna waxa uu yidhi kimistan laynoo keenayna gabadh uurle ayaa dubtay
cabdulaahigii saddexaadna waxa uu yidhi garyaqaankayna kala xukumaya waa wacal subaxii markii ay garyaqaankii hor yimaadeen ayuu ilan waa nin basaas u diray oo dusha kala socday arrimahoodii saddexda mid waliba soo jeedintii uu soo jeediyey weydiiyey cabdulaahigii koowaad waxa uu ku yidhi maxaad ku garatay in hilibkani uu hilib ee yahay waxa uuna ugu warceliyey xoolaheenna caadigaa lafta waxaa ku xigay hilibkana waxaa dusha ka saaran baruurta laakiinse dugaagga oo eydu ay ka mid tahay lafta waxaa ku xiga baruurta hilibkuna wuu ugu sarreeyaa sidaa awgeed ayaan ku gartay inuu hilibkani yahay hilib eeyaad kadib waxaa loo yeedhay ninkii qaabilsanaa martisooridda waxaana la weydiiyey neefka uu qalay wuxuu ahaa waxa uuna ugu jawaabay in adhigii lasoo meericinayey oo aanu hore u iman kadibna uu dhaaday in adhigu uu soo habsaamayo martiduna ay gaajoonayso kadibna ey yar oo xaafadda joogay uu u gowracay cabdulaahigii labaad ayaa la warsaday maxaad ku garatay kimista gabadha dubtay inay uur leedahay waxa uu yidhi si yaroo fudud ayaan ku ogaaday oo gabadhu marka ay uur leedahay intay kadaloob u soo fadhiisato kuma foorarsan karto daawaha ee dacal inta ay u fadhiisato ayay dhamacdana dacalka shishiisiga riixdaa oo dubtaa kadib badanaaba kimista ay dubtay dhanka ay dhamacda ku badan tahayna aad ayay uga shaaxidaa uga bislaataa dhanka iyada soo xigta ee ay dhamacda ka durkisayna kama shaaxido sidaas ayaan ku gartay inay gabadha kimista dubtayna gabadh uur la tahay garyaqaankii waxa uu diray cid soo ogaatay gabadha kimista dubtay waxaana la sheegay inay tahay gabadh sidkeedii go'ay kii saddexaad ayuu ku yidhi war adiguna maxaad ku gartay inaan garac ahay waxa uu ku yidhi wax aad u sahlan ayaan ku gartay inaad garac tahay oo dhaqanka iyo caadada carabeed kuma jirto ninku inuu basaaso oo indheendheeyo martidiisa adiguna qofna basaaso ayaad naga soo daba dirtay sidaa awgeed ayaan ku ogaaday inaad tahay garac garyaqaankii inta uu hooyadii u tegey ayuu ku yidhi hooyo xaqiiqada ii sheego yay dhalay hooyadiina waxa ay u caddaysay inuu ninkan yahay ibnu xaaraan kadib garyaqaankii inta uu ku soo noqday golihii ayuu xukunkii riday waxa uuna xukumay in cabdilaahigii isaga garaca ku sheegay aanu dhexlaynin odayga markii sababtii la weydiiyeyna waxa uu ugu warceliyey qofka garaca qof garaca oo kale ayuunbaa garta kadib saddexdii cabdilaahi dib ayay isugula soo noqdeen deegaankoodii hooyadoodna way weydiiyeen hooyadoodna arrinkii oo dhan ayay uga sheekeeyeen kadibna hooyadood waxa ay ku tidhi saddexdiinna mid ka mida ayuu aabbihiin ka soo qaaday masaajid salaad subax la hor dhigay kadib idinkoo daragadda saaran oo yaryar ayaad isku qasanteen oo laydinkala garan waayey sidaas ayaannu saddexdiinniba idinku korsannay daawade waad arki kartaa inta murti iyo xikmad iyo fiiro iyo indheergaradnimo meeshaa iska daba dhacday ilaahayna caqliga waxa uu inoo siiyey inaynu wax ku kala garanno oo si murtiyeysan u adeegsanno halka taa beddelkeeda aynu maanta maalaayacniga iyo waxba waxa ay ka liitaan wakhtigeenna iyo caqligeennaba ku bixinno ee nolosheenna ku khasaarayno daawade fiiro badnaanta iyo indheergaradnimadu aad ayay nolosha muhiim ugu tahay haddii kale bohol kasta oo lagu hadoodilaba waad ku hoobanaysaa